السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan doonayaa inaan idin la wadaago warbixin cusub oo aan runtii ka soo qaatay hay'adda CDC-da. December bay soo baxday waxayna ka hadlaysaa dumarka uurka leh ee C-sectionka lagu sameeyay Mareykanka iyo cayilkooda sida uu ahaa. Marka waxaan doonayaa inaan wax yar ku daro akhbaarta ah ee dumarka yaga ee 2020ga Mareykanka ku dhalay haddii ay C-section mareen. One sabab oo sababihii ay C-sectionka u qaateen ka mid noqon karaysa ayaa raba in halkan aan kala baxno. Maadaama C-sectionka ama qalliinka hooyada lagu sameeyo si cunuga looga soo saaro uu yahay topic dadka iyagu ay aad u danaynayaan, dood badanna ay ka qabaan, sida waxyaabo badan oo caafimaadka ama health delivery-gaba ay su'aalo badan oo ay talaalka iyo C-sectionka iyo toobikyo waxaa jira dadka iyagu aad u danaynayaan sababtoo ah waxa weeyaan aaraa fara badan bay ka qabaan siday wax u dhacayaan. Marka arrintan waxaan doonayaa oo aan kula wadaagayaa maadaama ay tahay one of the topics oo dadka iyagu ay danaynayaan in aan runtii wax ku ifiyo waxyaalaha dhici kara ee aad moog tahay ee aan doonayo si wax looga qabtana in aanu ka hortagno. Sheekadan waxay ku saabsan tahay waxaanu fiirin doonaa 2020 sanadii 2020 ee soo dhaaftay. Sanadaasi dumarkii Mareykanka ee dhalay ee cisbitaalada ku dhalay ee haddana operationkan C-sectionka maray markii loo fiiriyo cayilkooda sida uu ahaa. Haddii aad halkani maxaan ku raahdaa waxaan kuugu soo bandhigi doonaa cayilka doorka uu ku leeyahay in C-section aad martaa, taasoo aan uga dan leeyahay gabdho badan oo guursanaya, kuwo badan oo reero leh, kuwo badan oo uur qaadaya ama haddaba uur leh in ay cayilkooda foojignaanta loo baahan yahay iyo waxyaalaha talada ah ee marka cilmi baaristan ay wadato. Dumarkan runtii markii la fiiriyey ilaah waa ku roon yahay waxaa dhacday oo laga faa'iiday cilmi baaristan waxay tahay Mareykanka waxay fiirin dumarkii oo dhan ee dhalay ee sanadii 2020 waxayna fiirinayaan oo keliya boqolkii dhalmo ee dhashaaba ee loo qalay maxaan ku raahdaa maxaa la dhihi jiray C-sectionka iyo culeyskooda intuu la ekaa. Waxa ay aadka u danaynayaan waxay tahay cayilka gabadha uurka qaaday ee cunuga dhashay cayilkeeda raadma ku leeyahay inay maxaan ku raahdaa ay C-section u martaa. Marka waxaa caddaatay yes gabarba gabadha ay ka culus tahay, gabarba gabadha ay ka cayilsan tahay oo ka buuran tahayba ee uur qaaday waxay ku dambeynaysaa in ay maxaa la dhihi jiray ay C-section martay. In ay C-section ay martay taasoo ay dhici karayso gabdhaha ugu cayilnaa ee ugu buurnaa buurnida ta ugu sarreysa class 3-ga ah in ay boqolkiiba 52.3% in ay maxaan ku raahdaa ay u mareen qalinkaasoo ilmaha looga dhaliyey C-section. Haddaad fiirisid gabdhaha Mareykanka ahee maxaan ku raahdaa ee boqolkiiba ilaah waa ku roon yahay underweight-ka ah ee dhalay 20% ayaa deliverygooda C-section ahaa. 20% ayaa deliverygooda uu ahaa wuu ku yaraa micnaha waa shantii dhalmaba mid ka mid ah ayaa ahayd maxaa la dhihi jiray C-section kuwa caatada ah. Sababtu ma garanayo, qaarkood waxaa dhici karta inayba iska jecel yihiin oo ay maxaan ku raahdaa ay iyaga doortaan. laakiin marka normal weight-ka caadiyanba ilaa iyo boqolkiiba 25.1 25.1% oo ah quarter 1/4 ee dumarka normal weight-ka ah ayaa C-section maray sanadaasi. Halka marka ay gabadhu marka ay guursanayso intaysan uurka qaadin markay uurka qaaday haddii jirkeedu uu ahaa overweight. Waa maxay overweight? Waa maxay normal weight? waa maxay underweight? waa maxay obese? waxaasoo dhan hadda ma doonayo inaan halkaa aan ku soo qaato sababtoo ah waa nidaam kale iyo hab kale iyo casharo kale oo meelo badan aad ka maqasheen haddana aanan maxaan kuwa talagelin. laakiin waxa weeyaan waxaa lagu cabiraa waxa loo yaqaana body mass index taasoo macnaheedu yahay qofka culeyskiisa oo loo qeybiyey maxaan ku rahdaa dherarkiisa dabadeedna waxaa meesha ka soo baxaya waxa loo yaqaano qofka inta uu buuran yahay. haddii qofka uu yahay overweight oo uu ah markaasi xoogaa hilibah u saaran yahay dumarkaasi ilaa iyo boqolkiiba 30 iyo wax la jiro
ayay maxaan ku rahaa C-section ku dhaleen marka ay cayilkooda uu class 1 ka noqdana kor bay u sii kacday ilaa iyo 35% ku dhawaad ilaa iyo class 2 markay noqoto ka sii cayilan waxaanu ka hadlaynaa buurow kasii buurnow ugu buurnow oo kale ugu cayilan ugu maxaan ku rahdaa baruurta badan ama ugu maxaan ku rahaa culayska badan qofkaasi ilaa iyo class 3 oo ah meesha ugu maxaan ku rahaa xag jirta ee xagga cayilka ah dumarkaasi laba ilmaba dadkii noocaas ahaa markay laba dhaleen mid ayaa maxaan ku rahaa C-section ahaa 52.3% ee dhaliinka noocaas oo kale wuxuu ku yimid C-section taa waxaa laga faa'iidaya rabo inaan kuu sheego cayil kasta oo aad si yeelataa hilib kasta oo ku fuula baruur kasta oo ku fuusha haddii aad uur qaadid waxaa dhici karaysa in aad cunugaasi ku dhashaa C-sectionku muxuu yahay maxaa kaloo keeni karaa in C-section loo maro waa topic aad u ballaaran waxa keliya kuu bidhaaminaya waxay tahay oo aan doonayo inaad halkan ka fahamtaa waxay tahay haddii aad cayilan tahay oo aad xajmigaagu uu yahay maxaan ku rahdaa overweight ama obese oo class 1 ah ama obese kale maxaan class 2 ah ama obese oo class 3 ah fadlan sida ugu dhaqsada badan culayskaaga inaad isaga dejisaa ayay ku qurux badan tahay haddii aad tahay hooyo doonaysa in ay normal delivery ay ku dhashaa maxaa yeelay dumarka yaga aad bay uga hadleen arrintan C-sectionka ah qaarkoodina maxaan ku rahdaa caqabado badan bay kala kulmeen cisbitaalada marka waxa weeyaan faktarro badanna way keenaan oo ka baxsan cayilkan laakiin cayilka wuxuu hadda bannaanka soo dhigay inuu yahay hooyadii uur ku qaadda iyadoo cayilan in ay maxaan ku rahdaa looga soo saari doono cunuga maxaa yeelay cayilkaas waxyaabo badan buu wataa oo ay complicationno badan ay ka mid ka yihiin inuu xataa hooyadaasi ay ku dhacdo cudurro badan oo chronic ah oo kaadi sokor iyo waxyaalo kale ay u dheer yihiin iyo cunugii xitaa soo maristiisii marka waxay ahaataba waxaa halkaanu ka fahmaynaa dadka jooga Yurub Maraykan iyo waddamadan maxaan ku rahdaa ay cunnada taallo ama cunnada noocay doonto ahaatee aadka maxaan ku dadku ay u cayilaan in ay dumarkaasi hilibka dhigaan in ay exercise badan sameeyaan oo ay movementigooda dhaqaaqooda u bato cunnada ay cunayaan inay noqoto cunno nadiif ah oo maxaan ku rahdaa health food ah dabadeedna ay hurdo fiican helaan waxyaalaha runtii wax tari kara ayay ka mid tahay maxaa yeelay taa waxay ka hor istaagaysaa in aysan waxyaabo badan oo aysan jeclayn inay la kulmaan halka dumarka iyaga Soomaaliya jooga badankoodu ay nafaqa darro iyo maxaan ku rahdaa ay tabcaaniin yihiin dhici karayso oo maxaan ku rahdaa iyaguna ay caqabaad kale oo iyana keeni kara inay C-section iyo maxaan ku rahdaa dhalidooda ay ku dhiboodaan ay jirto marka waxaan doonayaa in aad sawirka qaadatid oo ah dumarka iyagu si ay u helaan ilmo caafimaad qaba hooyo caafimaad qabta in aanu maxaan ku culayska ama cayilka in aynu wax ka qabanno kuwii waddanka joogana nafaqa iyo maxaan ku rahdaa waxay u baahan yihiin caafimaad in aanu la raadinno oo dadka iyagu ay noqdaan kuwo mar kastaaba hela ilaah waa kuu roon yahay nolol caafimaad marka ujeeddada dhan aan lahaa waxay ahayd hooyada uurka qaada iyadoo cayilan in ay dhalideedu u noqon karayso in ay ku dhasho qalliin oo C-sectionka ama cesarean section in lagu sameeyo sababta aan kuugu sheegayna maahan maxaan ku rahdaa kawaalis iyo maxaan ku rahdaa kabadbadin ee ujeeddada waxay tahay inaad ka warhaysid ogaanta waa maxay cayil waa maxay BMI waa maxay overweight waa maxay obeskan laga hadlayo maxaa yeelay gabdho badan baa waxay yidhahdaan anigu waxaa la ileeyahay maxaa la dhihi jiray waa cayilan tahay laakiin uma muuqdo wax cayilan caadi baan ahay maxaa la dhihi jiray waa haddaad aragtid waa maxaan ku rahdaa waa waxaasoo dhani waa maxaan ku rahdaa waxyaalaha runtii dadka aan doonayay in conversationka ama sheekadu ay qayb ka noqoto intaasaan doonay inaan kula wadaago wabilaahi towfiiq waxaana jeclahay in ay wax kuu tarto intaasi